السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سجودة هي سجارة وخيارتك على مدرسة فردة كبعدي رنتي هذا الكوحال اللي غف كاحق مبضن هدو كاغا هالريو وحواي معنى الآن وكرديها كاغا مركا انتي نحر لهيد سلام على جيليو اللي هو فيصل هورو يري haddana waa hadal oo laga ma tago wixii aan ka dhihi karo waa ka leeyahay adinkana wixii weydiimo ah waana weydiin doontaan insha Allah arintan la xiriirta awalan mawduucan hadda mawduuceena ku saabsan ee ah dakhliga dalka soo gala qiyaastii hadda nimankaanu 10 milyan ee dollar ay ku sheegeen dalku dakhli oo canshuuro oo waxa حق وبسلالة دولة عنشورته وحال هذا لبا هبوا النظام كعنشورها مرحلتنا وحواي مرحلة عنشورته دولة وبسلاته وقفك السجا سي فولنتير وجيو حيا السجا يدنا وحرنته دنتي ساكو حرن إنه جيو هذا ليسن وضعته بتنتهى بابورك أما ليسن درايفر كاجا وسن عنشورنين وحصور قال إن جيت كلو وقف صدق مركب وبحي وعنشور يسا waxaa kamid ah waxyaabaha ay kamid yihiin ma aragtay beeca kala gadashada oo kale hadaad soo gadato guri ama dhul aad rabto inaad gadato ama gaari aad gadanaysaa waxa ku qasban tahay inaad marsiiso canshuuraha soo canshuura lagu leeyahay markii aad maxkamadda rabto inaad ku sharciyeyso marka hadda anigu ma arko in kasto ay aad u yar tahay warqadihii maartay staamka ama fargaboolooyinka lagu dhajin jiray boolada lagu dhajin jiray oo dawladda canshuuraha dadban u badnaa waxa way canshuurtaas dadka iyaga ku qasban inay sameeyaan hadaan hadda aniga biil meel geeyo oo aan rabo inaan maartay doonto biilkaygii shaqadii aan soo qabtay canshuurta ay laysiyo liira soo canshuura leeyahay marka inaan soo canshuur waxay ku xiran tahay in lacagtii aan dalban lahaa laysiyo taas marka ana wada midna waa mid ay wado dawladda iyada ayaa soo doonta oo dhaqdhaqaaqyada kale ay ku waajibaan oo hadaad ka maqan tahay ma indhahaaga isqabtaan way ku dhaafaysaa canshuuraha waxa kamid ah diyaarada hawadaan maraysa dhulka inta ay marta canshuuran ka rabnaa inta hawadeena martay iyo badeena dusheeda inta ay marto markaba maraya badeena ama ku soo xiranaayo territoriyadeena markuu soo galo oo badda ah canshuuran ka rabnaa markuu noo yimaado badeecada iyo wixii la wado canshuurta dadka inay soo maraan way kastanka canshuurta bixiyaan canshuuraha dad ban sidaas oo kale dakhliga canshuurta shaqaalaha mushahar qaata hadaan meel mushahar ka qaato waxa laga gurayaa mushaharkayga inta canshuur ay u go'daa leeyahay intaan waa la siinaa ganacsiga badeeca kasto la gado canshuurta gadida la yiraahdaa canshuurta macaashka la yiraahdaa canshuurta heblaaya la yiraahdaa ama macaashka daaraha macaashka ganacsiga macaashka kale ee maxaan ku yiraahdaa shaqaalaha saddex macaash waxa waa canshuuraha toosan oo kale canshuuraha dad baro tiro badan ayaa ayagana jiraya oo laga qaado oo waxyaabaha sales tax-ka ay kamid yihiin waxyaabaha baarka hadaan tago casheer ka cuno canshuur ay u socoto 5% oo canshuuraha laga qaadaya ninkan canshuurta ama bool ku dhajinaya ama iyadoo cash inuu shubaa laga rabaa oo bill baa laga qaadaya oo nidaam iska jiray way oo standard oo la yaqaan ama libra journal oo book baa lagu qoraa dakhliga maanta hotel kasto la seexdo qofkii seexda canshuura ku waajibaysa canshuurtaas 5% ah waxa way bishii inuu shubo way oo degmada uu joogay wasaaraddeeda ama hay'adda canshuuraha inuu shubo marka dakhliga dawladda u bislaan kara ee canshuureed ee la soo xareyn karo aad u badan yahay marka aan ka hadlayo waxa way canshuuraha waa canshuuro heer qaran kuwana waxa iskala dawlad goboleedyada kuwa degmooyinka leh iyo gobolada iyo dawladaha hoose waxa la yiraahdo marka annaga kuwayaga ee aan ka hadlayno waxa way kuwa dawladda dhexe ee aan hadda ku qiyaasnay 10 milyan ee dollar amba ka soo qaadno 10 milyan ee dollar ee aan helno ee canshuur noo soo gala waa in aan marsiinaa wadadii saxda ahayd wadada saxda ahayd maxay tahay baahiyaan leenahay baahiyaan qabnaa baahiyaasheenana waa noo kala horeeyaan nidaam baa jira dawlad kastaba iyo habbay leedahay hadda Soomaaliya baahida ugu weyn ee jirtaahay waxa waaye baahi amni baahida amniga waa inaan u horeysiyaa haddaan baahida amniga aanan dhammaystirin hawl kale oo la qaban karo male
majaalka oo waxbarashada kama shaqayn karno majaalka caafimaadka kama shaqayn karno maxaan ku yiraahdaa wax soo saar kale kama shaqayn karno shaqadeena waxay noqonaysaa inaan awalan xooga saarno shacab iyo xukuumad baan isugu tagno amniga in la soo celiyo maadaama dagaalo badan iyo dhibaato badan ay dhacday dalkan oo hadda dawladdiiba ay cardun tahay oo dawladda dhismaheedii lagu wada jiro dawlad sax inay dhisanto waxaa la rabaa inaan isugu geyno waxaanu helno amniga waxaa wada oo qabanaya waxaa la yiraahdo ragga amniga rijaal amni dadkii shaqada amniga sugi lahaa waa ciidamadeena Soomaaliya ciidamadeedu marka anigu waxaa la yiraahdaa waa inaan ciidamadeedu waa inaan siiya ahmiyadda ugu weyn dakhliga aan soo helo dakhliga budgetka ugu badan waa inaan ciidamada amniga sugaya siiya baadiyaan basagan asalkeena ka nimid xoolaha leeyahay ma dhaqankeena baadiyo ku salaysan yahay xoolaha neefka irmaan iyo neefka kale isku si uma waraabsaysid neefkan waa ku soo celceliya xataa inaad wabxisaad jeceshahay oo ma aragtay aad maxaa yeelay reerka waaba meesha looga nool yahay caanaha laga ma aragtay laga maasho oo laga liso waa reerka waxay ku nool yihiin marka neefkaaga irmaan sidaad u xanaanaysato oo irmaankaaga u waraabiso waa inaad raggaaga amniga sugaya u roonaata si amniga u yimaado amni u soo noqdo amni hadduu soo noqdo wax badan hagaagay marka waxaa mushkiladana haysa awalan markaan anagoona ka hadlin corruptionka waxa ka daran waxa la yiraahdo isu dheelitiranka ama isu miisaamida dakhligana soo gala meesha aan ku bixinayn kuma bixinin oo munaasab u ahayd markii ay tagto hay'adihii amniga wixii ka gaara wax laga cabaadayo waa ninkii amniga sugi lahaa waa baahan yahay baahidiisii asaasiga ahayd mid waa isla qiraynaa oo waa inaan meesha hoosta ka xariiqnaa haddii maanta dawladda cid kasta loo dhiibo salaad cali jaal madaxweyne hadduu ka noqdo iyo hadday milyuun ka noqoto iyo haddii cid kasta ka noqoto Soomaaliya marxaladda ay ku jirto ee inay shanta dal adduunka ugu faqrisan tahay waqti socodka kororsiimay u baahan tahay oo kama saari karaan oo dakhli wixii yaalay ku maareeyayaan maahine iyagu markaa wax kama socon karaan oo isla markii kama dhigi karaan wadanka adduunka 15aad iyo 16aad inaan tagno markiiba ma dhacayso waxaan nahay shanta dal ugu faqrisan caalamka laakiin inta yar aan helay waa inaan u maareynaa si caqli leh ma ay dhicin haddana waa la sii dhacayaa haddaad aragto hay'ad kasta waxaa ka jira musuqmaasuq baahsan oo aad iyo aad indha xumo u ah waxaas marka waxay noqonaysaa dhaqan bay nagu noqonaysaa waa ayaan daro dakhligan waxaa weheliya sidii ay asxaabtii ugu horreysay carabka ku dhufatay dakhli kale oo aan ahayn miisaaniyaddeena tooska ah ee annaga aan soo xareyno waxaa weheliya dakhli intaas la eg ama ka badnaan kara ama hal gacan kaliya 10 milyan bar noqon karto bishii ayaa waxaa la soo siiyaa ama dhowrkii bilood dawladda la soo siiya ila badan hadda dawladda badan oo caawiya jira kuwa 2 milyan si kuwa 1 milyan si oo aan naqaano oo hebel la dhaho lacag dawlad marka la soo siiyo nidaamkeeda waxa weeye awalan wasaaradda maaliyadda inay keento qaybta canshuuraha inay geyso lacagtii kaashka ahayd la soo siiyay dawladda waa inay u jartaa warqad rasiida central bank waa in la geeyaa bankiga dhexe dakhliga dalka waa inay ka mid noqotaa budget bay ku baxeen markaa hantida qarankana waa tahay xisaabiga gudaha helaya hanti dhulka qaranka helaya waxaa haysta bankiga dhexe helaya wasaaradda maaliyadda reportkeeda ku qoraysaa dalkan dakhliga soo galo ka mid noqonaa bishaas markaas xisaabaadka dawladdu ay sidii u bixi jireen u baxayaan laakiin haddii qof uu iska dhigto sariirtiisa hoosteeda oo loo soo dhiibay ama uu ku yiraahdo lacagta la ii soo dhiibay waxay ahayd 2 milyan 5 milyan loo soo dhiibay 2 milyan la ii soo dhiibay uu ku yiraahdo 2 milyan aanu xataa geynin meeshii aan ku ballanay ee ahayd dastuurkeena noogu qornaa hantida qaranka waxay gashaa qasnada dhexe dawladda haddaan la geyn waa dhacid bareer ah oo boob ah waa la dhacayaa maxaa yeelay cid ogaan karta male wada aan sharci ahayna waa ku baxaysaa oo hubaal ah waxaan leeyahay marka nidaam aad u qaab daran waayo oo noo yaalo aan ku dhaqanno oo hadda inoo yaalo musuqmaasuqyada la rabo inaan baabi'ino wax isweydaarsiga wax la yiraahdo wax isweydaarinta la rabo in laga shaqeeyo waayo mas'uul waxa uu ka saaran yahay cid kastoo Soomaali ah arinta noocaas oo kala waxa jira wax la yiraahdo dakhli Soomaalida u soo xaroodo oo kale oo badan oo ku yimaada nidaamyo kala duwan kulligoodna halkaas waday ahayd inay soo maraan dakhligaas
haddii uu waddadiisii ka leexdo hal mar hadduu ka leexdo mar labaad laguma soo celi karo mar labaad waxaa abuurmaayo nidaam darra abuurmayso waxaa ka mid ah haddaan soo qaadano tusaale dowladda waxay leedahay wasaarad u qaabishan maaliyadda dhaqaalaha u qaabishan maaliyadda wasaaradda maaliyadda waxay u xil saaran tahay sida magaceedu u yahay maaliyadda oo dhan dakhli iyo kharashba ha loo kala saaro iyo wixii qalab ah dakhliga iyo kharashka waa laba wasaarad oo aad u waaweyn tashkiilka wasaaradaha ama qaabka loo sameeyey ee haykalkooda waa arkaysaa in la ihmaaliyey hal meelaa la isugu geeyey dakhliga iyo kharashka wasaaradda dakhligaana noo muhiim ah maaha inaan wax bixino inaan wax ururinno waay oon canshuuraha khubaro ay u joogaan oo soo diyaariyo oo dowlad goboleedyada maxay soo saaraan maxay ku soo xareen hadda waa ogtiin xamraan canshuurnaa annaga dowladda waxay canshuurto waa magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqeeda keliya weliba qaybo yaroo ka mid a bay canshuur ka qaadaa taasu canshuur qarameed maaha qaranka waa inuu meel kasta oo dowladdaanu maanta ammaankeeda jiro maamul ka jiro dakhligeeda waa inuu percentage dowladda ay leedahay percentageka kalena waa in la ogyahay siday ku baxayso nidaamka ay ku baxayso inaan ogaano waay oo ay dowladda dhexe ogaato wasaaradda maaliyadda waxay ahayd marka in xoogga la saaro xogeeyo joogto oo kale in la sameeyo culus wasaaradaha laba agaasimo guud oo laba wasiir u kala u dhigma laba wasaaradood waay midna dakhliga midna kharashka in la sameeyo lama abuurin meelaan loo baahnayn wasaaradda cadaaladda waxaa loo sameynayaa xogeeyo joogto wasaaradda maaliyadda maxaa diiday oo hawshaas maan samayn waxaa jira waxa la yidhaahdo wax ka baxsan oo ah revenue authority la samayn karay revenue authority-ga ama hay-ad dakhli ururin ah canshuuraha aruurisa oo ah ilaha canshuuraha annaga ay naga soo galaan isha toos ugu haysa oo dadka canshuur ururinta maaha baase laakiin in la yidhaahdo wacyigelin baa ka weyn in qofka muwaadinka loo sheego dakhliga la'aantiisa haddaan qaaraan aan isku darsan soomaali dowlad yidhaahdo wadi karayna ma jirto ee niman yahow baasadii aan isku darsanno wixii kalena waxay noqonayaan qaabka aan ku bixinin marka intaas aan yidhaahdo waa ka hadli doonaa arrintan kale musuqmaasuqa waxaan u malaynayaa guddoomiyaha aad u caddeeyey aniga ma rabo inaan kusii dheeraado oo ah wixii laga yiri de qof oo aan sharciga haddaanu ku dhaqmaynin nidaam waxa waaye si loola dhaqmo lama yaqaan sharci weyn lagu dhaqmaa anigu hadda ma aqaan cidda ku caddaynayso laakiin waxaa laga rabaa qofka inuu isaga la yimaado presidentaha waxaa lagu sheegay musuqmaasuq haddii lagugu sheegay waa inaad adiga timaadaa oo tiraahdaa ma gelin musuqmaasuq aniga ما إن الله لا بطبع ما هين إنه تجو برلمان كعدي يراد أنو مسمى مجل واحد عدينا هذا إيه إنسان كان إنه يراد مركا هي أداس أيجا عدين دون لكن إلا قرر أنت كبعدي جدية قرنك وحن ربا إن أوجاتان جدية قرنك الدستور كان لجرب إن السمايان بعضهم كذا لما السماي ولو حلوان كوفي على إنه جوجو هذا ظروفي وفصحنا قاتي حل ديوان هذا دستور كقرنك waxaa baarlamaanka waxay ahayd inuu sameeyo guddiyo qaran oo aad u xoogan baa jira oo muhiim ah oo ay ka mid tahay guddigii hadda laga shanqariyay hadda baarlamaanka ama aqaan in loo gudbiyay axsaabta guddiga doorashada hadda la sameeyay guddiga doorashada waxay ahayd sanadka hore in la sameeyay maxay hadda sameeyeen axsaabta sharcigeedii lama baas kareen qaanuunkii axsaabta lama sameeyay guddiga doorashada la sameeyay waa nidaam la kala hormaryahay wixii la rabay shaqadu qabahay numa diyaarsana marka hadda la waxaa marka maqan intaas soo guddiyo qaran oo aan tactic daraadis loo jiidayo waa ka xumahay in ay arintaas dhacdo laakiin haddana cadaadiska ay wadaan dadka waxgaradka iyo aqoonyahanada siyaasiyiinta iyo ururada bulshada rayidka door weyn bay runtii ka ciyaaraan oo hadda waxyaabo aan la rabin in la sameeyo ayaa waxaad moodaa in tallaabooyin markaan la qaadqaadayo oo aan meel lagu gambado la helayn وانا جعلان لها ان مركا بريشر كان اوسي بطو هذا ما هسنتين هذا كل ديري غير هذا وما صنت هاي مدن المحدثين محمد حاج ابراهيم قدومي ابراد حزب الوطن وارون هرتا لنا سياسه دواء هذا ظلمني هذا كل يوم نسكو ركنا واحد جيران وايرين وجيران الى الشيخ وما عرف حتى لو باهي ايوبا وحوى لسان الحاله لهذا وحي marka taagan arinta la xiriirta anigu xagga farsamada horta olole in la qaado oo musuqmaasuqa ah waa waajib wadani ah Soomaali hadaan nahay inaan isbarno in aan
diidno musuqmaasuqa marka arrintaas iyada ma aha kaliya dawladda inaan ka sugno kaliya waxa waa door oo shacabkuna leeyahay waa jira shacabka doorkiisa waxa kamid ah wax xaq dastuuri ah uu leeyahay ayuu laalushku bixinaa amarka ilaahay sida hadda salaad uu sheego kale nin beeshiisa kursi ay leedahay isaga iyo maadeeradiisa iyo qaraabadiisa ku tartamay cid kale ma u imaanaysa inay ku tartamaan ayaga lacag ku bixinaya ma aha inay lacag ku bixiyaan waa inuu qof u naqdaa lagu tartamaan qaab loo kala bixiyo xafiiska aad tago shaqo aniga aan ka qabsado rabo lacag layga xujeeyo waa inaan diidaan yiraahdo absolutely ma dhiibayo waxaan anaa iskale waa samaystay waxayga isii lacagtii iyo wixii laga rabay waajibaadkayga waa bixiyay marka lama sameeyo haddaan samayno xoogaa dileydkaas yaraan diidayna iyoba inaan u orodnaan rabnaa marka waa arrin dhibaato ah oo shacabkanu dhinac ka wado midda kale tiknikada waxaa waaye muhiim waxaa ah shaksiga shariif baa taabtay yarka dhalinyarada ahaa shariif maxamed xasan shaksiga munaasabka ku ahaa ma la geenaayo siyaasadda ma ogtahay aqoon uma baahna siyaasadda caqli waaye siyaasadda nin oo macallin ka ah maxaan ku yidhahdaa international lowga ka dhiga dirito international jaamacada ka dhiga waxaa laga yaabaa haddii wasaaradda khaarijiyada la geeyo oo la yidhaahdo xiriirka caalamiga wax ka qabo inuu wax ka qabo waayo asaana dadka bara taas ma aha waxba ma ku fadhido cilmiga siyaasadda laakiin farsamada shaqada farsamada waa aqoon dad technocrats oo shaqada yaqaan waa inay noqdaan ama loo tababaraa lana geeyaa ama dadka aqoonta leh hadda u jooga haddii xataa aad beel ku siinayso aad leedahay waayaan waxaanu naqanay moogtahay wax la yidhahdo wax beela in lagu qaybiyo war beeshii dadkii ka dhashay oo aqoonta lahaa qaarkood oo shaqada qaban karaa jooga marka ninkii shaqadii yaqaanay inaad adiga tiraahdo aniga daacad iima aha daraadiis in looga tago waa dhibaato marka haddii la iswaafajiyo shaqada iyo aqoonta waa heer sare oo waxaan qabaa in uu corruptionka xataa yaraan lahaa oo waxyaabo badan arrinta la xiriirta wasaaradda hadda aan maaliyadda ee shaqada noo haysa qayb dhan baa ah qaybta dakhliga aniga hadda in badan oo ka mid ah qaar waan arkay laakiin dadkaas weli xataa waaye aragyo maaha intii meesha joogtay waxyaabaha inaga maqan waxaa ka mid ah kulligiin waa ogtihiin maalin kasta hadda maqaayadaan joogno shaahan aan cabayno canshuur lagama qaado canshuurta dadban ee laga qaado mataqaanaa ninkan inuu ganacsado shatigiisa ku ganacsado hotelkan waa looga baahan hal qof hadduu seexdo hotelka lacagaa looga baahan canshuurahaas inay bixiyaan lagama ka soo tag biilasha dowladda Soomaaliya ay bixiso boqol qandaraas ay bixisaa sax iyo qalad waxay rabtaa ku bixiso markii loo soo sheeganayo qaan sheegadka uu soo qorto biilkiisa qofka uu yiraahdo isiya dawladda lacagtaas alaabtaas aad iga gadateen soo canshuur la dhihi maayo dawladdii way laftirkeeda ninka wuxuu diyaar u yahay inuu canshuuro wax aan adduunka la canshuurin ma laha dakhli badan meesha waa nooga lumaya marka qaabka dakhli loo keeno waxaa waaye waa inaan helno hay-ad oo revenue authority ama wasaaradii gaar haddaan loo bixin doonin oo tashkiilka wasaaradda waa inaan helnaa hay-ad u qaabishan canshuuraha dalka iyo hay-adan anti corruptionka la yiraahdo oo musuqmaasuqa lidiga ku ah oo iyadu ka madax bannaan wasaaradaha iyo hay-adaha si ay ugu xudmadaan waa jira hanti dhowrka qaranka waa jira wuu shaqeeyaa budgetku controla kaliya miisaaniyaddii baarlamaanku ansixiyey buu un daba socdaa laakiin ogaada wasaaradda maaliyadda shaqadeeda waxyaabaha ka midka ah oo hay-addaas ay keli leedahay waxaa ka mid ah hantida qaranka oo dhan guryaha iskoollo mataqaanaa cisbitaallo meel jardiino publica ah wixii dowladda hoose ay leedahay dowladda dhexe waxay leedahay waxoo dhan dowladda hantideeda naqanaya wasaaradda maaliyadda mas-uulka ah marka arrintaasi waxaan qabaa dadaal badan iyo waxay u baahan tahay oo mar kasta ay ku soo shubanaysaa hoggaamin wanaagsan haddii la helo shaqada way hagaagaysaa doorkeennana waxa ay ka tahay door weyn bay aan ka ciyaari karnaa haddaan annaga diidno inaan musuqmaasuq ku kacno inaan aniga laaluusho gurigaygaan aan rijeynayo gurigaygaan diyaaranayo dhisanayo aanin igu imaanayo wuxuu leeyahay lacag si haddii kale jooji shaqada inaan shaqada joojiyo goobta dacwada la tago waayo oo iraahdo anigu ninkan muxuu iga rabaa haddaan fasax dhismo soo goosto haddaan wixii qaaraamaad lagu lahaa iga baxshay ninkan muxuu ii daba socdaa ma baad miya wuxuu iga rabo shilin lacag oo jeebkaaga ku dhacdo bixin maayo waxaan bixinayaa wixii dokumenti leh warqadan lacag ku siiyana warqada igu qoran tahay si oo sharci ah rasiidka lacagta aan ku baxshay si
حسابات كاس هدان أننا إلى شنون أننا لفتك يو شعب كأندورنو وحن قبائل إن هوس ودقينه وحل إلى هذا الكوربشن كا ما مسق ما سقى يوحس دوا مرنتا هذا وما سنتي موضوع هذا دير وحن رجينا يا أبوكر هاوشنا إلى وقت قبل مغرب كي نقصوا هذه وما سنتي السلام عليكم